بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، واختار منهم العرب ومنهم قريشا ومنهم بني هاشم ومنهم حبيبه محمدا سيد المرسلين، فهو صلى الله عليه وسلم صفوة المصطفين الأخيار ونخبة النخب وخيار الخيار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وحبيبه وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaynu ku qabanaynaa munaasabad nebiga aynu kaga warramano calayhi salaatu wasalaam, nebiga tacdiimintiisa iyo taqdiirintiisa iyo sharfintiisa oo ilaahayna amray aynu iskaga soo jeedinayno. leannahu maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam afdalu khayri khalqillaahi, ilaahay wuxuu abuuray kii ugu fadliga badnaa ayuu ahaa. fadliga nebiga haddii laga sheekeeyo calayhi salaatu wasalaam wax yar mooyaane nihaayadiisa lama gaadhayo nebiga fadligiisa calayhi salaatu wasalaam. sidaa darteed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku yidhi subxaanahu wa tacaala: huwa aladii bacatha fi lumiyiina rasuula minhum, huwa ilaahay aladii allaha weeye bacatha kasoo saaray fi lumiyiina umiyiinta dhexdeeda kasoo saaray rasuulan rasuul ka soo saaray oo minhum ayaga ka mid a yatluu calayhim aayaatih, ilaahay aayaadkiisii ayuu ku dul akrinaya, wayuzakiihim wuuna dahirayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam. markaa ilaahayna wuxuu leeyahay wuu dahirayaa, qolana waxay la leeyahay nebigu waxba ma dahiri karo. nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa uu ilaahay u leeyahay wuu dahiraya ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dahiraya, ayuu nebigeenu calayhi salaatu wasalaam xiqdiga iyo xasadka iyo xumaanta oo dhan buu tegsiiyaa. wayucallimuhum lkitaaba, kitaabkuu barayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam, walxikmata, xikmadana wuu barayaa. xikmadda lafteedu munazalo weeyaan baa layidhiyo: waanzala allahu calayka alkitaaba walxikma wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullahi calayka cadiima. waa kii ilaahay qur-aanka ku yidhi subxaanahu wa tacaala, ilaahay nebi maxamed dorshaada wuxuu ku soo dejiyey kitaab, wuxuuna ku baray maa lam takun taclam, waxaadan hore u aqoonin buuna ilaahay ku baray. wa kaana fadlullaahi calayka cadiiman, ilaahay fadliga uu ku siiyeyna nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam wax weyn weeye. marka waxa weyn ilaahay waxa uu ku sheegay innagu waxaynu qiyaasi karnaba ma aha. sidaa darteed mawduucyo kala duwan ayaa laga hadlay. markaa waxaynu ka hadlanaa mucjisada nebiga calayhi salaatu wasalaam, iyadoo mucjisada nebiga aan la koobi karayno aad odhanaysid midiba tii ay ka dambeysay ayay kasii daranta. rawa daaralqudniyu walbayhaqiyu washaykhuhu alxaakim washaykhihi sucadiyi can ibni cumara ana nabiya sala allahu calayhi wasalam. daaralqudni wuxuu wariyey, bayhaqina uu ka wariyey, bayhaqi sheekhiisoo xaakimna uu wariyey, sheekhiisoo sucadina uu wariyey, cabdillaahi ibni cumarna uu ka wariyey أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في محفل من أصحابه إذ جاءه أعرابي من بني سليم. نبي جوج عليه الصلاة والسلام محفل بلارا وأصحاب كيسا أياه وحاول من أعرابي وقرض غير بني سليم لإلهه قد ساد ضبا من كان صوصا وقار صدي وسود لي بهش الإله ما سعجل إذا ما بهش الإله ما سلولي وجعله في كمه وكل كلام صاق شدي ليذهب به إلى رحلي. siduu gurigiisii uula tago ayuu halkaa intuu soo bireeyey bahashii ayuu wuxuu soo gashaday halkaa goshuu soo gashaday, fayushbiyahu wuu soo wayaakulahu wuu cuno dabeedna. bahashii uu soo bireeyey ayuu wuxuu yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam maascagadii oo biraysan isagoo sito oo kilinkilada ku sito. falamaa raca aljamaacata, markuu arkay dabeedna nebigii iyo asxaabtiisa calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yidhi: ma haaulaa, kuwaas maxay ahaayeen? faqaaluu waxay yidhahdeen: aladii yazcumu annahu nebiyu, kii nebinimada sheeganayay weeyaane lahaa anigu nebi baani. faataahu wuu yimi faqaala wuxuu yidhi: yaa maxamedu mashtamalatu nisaabu calaa dii nahjatin akdabu minka. nebi maxamedow, mid adiga kaa been badani gabadhi may xambaarin buu yidhi. dabeedna ninkii caraabiga ahaa ee maascagalada soo biriyey: falowlaa ansafata lilcarabi cajuulen, haddaba wuxuu yidhi haddii aanay carabi igu sifaynin nin deg deg badan
ودق بالله يوحنا تاين دق بدن حدي أنا يوصفين وفي لحنتي من مجالك اللي يلاهي لقتلتك وكدلي لأبي النبي محمد وصررت الناس بقتل كعش معين طيب نديل كائن كدلي بندتك عورنك كفر حلا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أقتل نبي محمد يا رسول الله السيد عمر بوحي للرسول كيله يوقبل منك عندي فقال صلى الله عليه وسلم لا أما علمت أن الحليم قد كاد يكون النبي نبي وحي عليه الصلاة والسلام ميدلي ميسي مياد لوجه إنك ردش بدنين والنبي نمكو سكتبين وخرك وساريه قف ردش لين النبي نمكو سكتبين والنبي نقضبين وكسجناي ثم أقبلني عربي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ننكي عربي هاي ما سعجل دسوق بريدي بعد النبي حقي سويسو تشيستي فقال العربي والله والعزى لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب ننكي عربي هاي سوق بريدي بعد النبي لا تي عزى كل عرتي لا آمنت بك حتى يؤمن هذا الضب نبي محمد إلا أي كرميسة تاسي ما سعجل ده سوق بريدي إلا أي كرميسة كرمين مايو فأخرج الضب من كمه وضرحه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سعجل يجيبه كصوص على الدبنك لكل ديسة وحكوصه طور النبي هرتيس عليه الصلاة والسلام فقال العربي دبنك عربي هيوحي الراعي إن آمن بك آمنت بك حدي بهشة أنسوبري ما سعجل يدي على كرميسه أنا بنو كرمينيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ضب نبي الله عليه الصلاة والسلام ما سعجل يدي بالله ضوحي ما سعجل فأجابه بلسان ضلق فصيح عربي مبين وحي وجواب النبي عليه الصلاة والسلام عرب سيديسن أو فصيحة أو عربية أو عب سيدين تنا وحلو وجه ذا عرب عن حق لهين عن حباب لهين عن قبص لهين أي الوجه ذا أي كل هذا الشيء النبي يسمعه القوم جميعا جميع النبي قال له عليه الصلاة والسلام أيام القيامة وحي وقوش النبي قال لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين كو يرى أو هيك النبي إلهي يا رسول رب العالمين عالمين تربي يقولوا كي وصدر يوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعبد نبي وحي عليه الصلاة والسلام يدعى بده قال الذي عرشه قال الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلدانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه وحيت للدبيدنا وحن عابده الله عاشقيسو حق سريه أردديس السلطان نمديس يبغر نمديس أي تالو بدهنا ودوين كيسو أي مران جنديس إلهي الرحمديس أي تحي نارتيس عذاب كيس أي تحي الله سن عبده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيد فمن أنا يا رحيان مسعجري قال أنت الرسول رب العالمين وخاتم النبيين قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك وحيت للدبيت وحتى يعذب الرسول رب العالمين عالمين تكرب جودو كي وصادري بعطي كي نبي يد الله ختمي بعطي قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك وحف ليباني وقوليستي نبي محمد وكي كرمية وحاوغي وهلاك سمي كي كبيرية فقال العربي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حق نكي عربي هذا وحي للرسول كي إلهي أشهد وحنقر يا لا إله إلا الله إله كرينا يجرين إلهي مويان وأنك رسول الله حق أذيقنا إنا تهي الرسول كي إلهي عالمين توصدري أو حق أو نبا والله لقد أتيتك ما على وجه الأرض أحد هو أبغض إلي منك نكي عربي هذا أي ما سعير دسوق بريبا وحي للنبي محمد إلهي بانقر عرطيه وحنكو إمي أيضا لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اصطفى آدم نوحا وآل عمران على العالمين واختار منهم العرب ومنهم قريش ومنهم بني هاشم ومنهم حبيبه محمد سيد المرسلين وهو صلى الله عليه وسلم صفوة المصطفى الخيار صلى الله عليه صلاة كاملة دائمة وعلى آله وأمهات المؤمنين وأصحابه النجوم المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين موضوعنا نمانت الكساب سيهي إنان يستغشى كينو من يرى كوبا وفضائش النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كوكاقا ورمي آيات كمدا إنه الكوكا ورمي إنه قدتك كبرى رجينينا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي النبي قرآن كأيوم بدنك أماني فلا يشي سنة بدنك يحضر في ثناء الله تعالى عليه وإظهار عظيم قدره
markaa nabiga calayhi salaatu wasalaam qur-aanka ayuu in badan ilaahay kaga hadlay oo kusoo celceliyey isagoo ilaahayna tusinaayo nebiga fadliga uu leeyahay iyo waxaa ka mid a markaa ammaanta uu nebigu ammaanay ilaahay qur-aankiisa ku ammaanay waxa uu ilaahay dadka kale waajib kaga dhigay nebiga adeecitaankiisii ambiyadii naga horreysay ayuu ilaahay kaga qaaday ballan nebiga kasta uu odhanayay ilaahay subxaanahu watacaala nebi walba uu ballan kaga qaadayay nebi maxamed hadduu yimaado nebi kasta uu ballan kaga qaadayay inaad rumaysaan oo u gargaartaan dabeedna saas bay iyaguna ballanka saasay ambiyaduna ku galeen ilaahay waxa uu yihi subxaanahu watacaala tilka arusul fadalnaa bacdahum calaa bacdin minhum man kalama allah ilaahay waxa uu yihi tilka taasi arrusul waa rusushii fadala allahu ilaahay uu fadilay bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale ayuu ka fadilay minhum ambiyadii waxaa ka mid a man kalama allahu miduu ilaahay la hadlay ayaa ka mid a markaa kaa ilaahay la hadlay oo kaliimullaahi waxa weeye ay yidhahdeen culimada mufasiriinta ay ku fasireen nebi muuse calayhi salaam oo bilaawaasida ayuu kula hadlay ilaahay waxau yihi wa rafaca bacdahum darajaatin qaar ka mid a ambiyada qaar ka mid a waxa uu kor yeelay darajaad warafaca wuu kor yeelay baa ilaahay yihi bacdahum ambiyada barhkood darajaatin buu kor yeelay oo ambiyadii kale ayuu darajo dheeraad ah uu ka kor yeelay yacni waxa looga jeedaa bay yidhahdeen halka aayadda qur-aanka culimadu ay ku fasireen maxamedi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam markaa 3 siyaabood ayaa nebiga loo kor yeelay baa la yidhi oo dadka kale looga fadilay midi waxa weeyaan baa la yidhi bidaati xagga daatanimada calayhi salaatu wasalaam ayaa nebiga loo fadilay oo daatadiisa meel aan makhluuqaad gaadhin oona cid kale gaadhin ayaa ilaahay gaadhsiiyey 7 samaawaadka intuu dhaafiyey ayuu halkaa ilaahay kala kulmay taasi markaa waxay tusinaysaa baa la yidhi darajada nebiga calayhi salaatu wasalaam waayahay talka labaad waxa weeye bisiyaadati nebigu waxa uu sayidnimo lagu fadilay weeye calaa jamiici albashari calayhi ta labaad waxa weeye sayidnimo iyo sharaf ilaahay dheeraad uu nebiga siiyey calaa jamiici albashari makhluuqaadka oo dhan buu sayidkooda yahay oo jin iyo insi markii la sugayay nebiga calayhi salaatu wasalaam ka ugu fadli badan weeye ta saddexaad waxa weeye walilmucjisaatu mucjisooyin baa ilaahay nebiga ku fadilay maa lam ya'ti nabiyun qablahu mucjisooyinkaasoo nebi ka horreeyay aanu nebiga lemin calayhi salaatu wasalaam ayaa lagu fadilay nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu wariyey tirmidi can saciid alkhudriyi wuxuu ka wariyey qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaa waxa uu yidhi anaa sayidu waladu aadam yowma alqiyaamati walaa faqra nebigu waxau yihi calayhi salaatu wasalaam anaa sayidu waladul aadam nebi aadan waladkiisa sayidkoodii ayaan hay yowma alqiyaamati maalinta yowma alqiyaame walaa faqra arrintaasina arrin aan ku faanayo maaha ee waa nimco ilaahay ii siiyey oo aan ka sheekaynayo wey waxa uu yihi waa biyadii gacantayda ayuu ahaanayaa liwaa lxamdi calanka mahadnaquna maalintaa gacantayda ayuu ahaanayaa wamaa min nabiyin aadamu faman siwaahu ilaa taxta liwaa'i nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi nebi ma jiro nebi aadan iyo ciddii ka soo hadhay maalinta yowmalqiyaame marka ay tahay waxa uu ku sugnaanayaa taxta liwaa'i calankayga hoostiisa markaa waxyaabaha nebiga fadaayishiisa waxaa ka mid a ilaahay wuxuu ku tilmaamay ra-uuf raxiim waxyaabaha waxaa ka mid a nebiga fadaayishiisa iyo macaani iyo wanaagyaashiisa ayaa ilaahay qur-aanka ku tirtiriyey oo qur-aanka meelo badan kusoo noqnoqotay ilaahay waxau yihi laqad jaa-akum waxaa idin yimi rasuulun baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum idinka idin ka mid a rasuul idinka idin ka mida baa idin yimi markaa waxaa la yidhi rasuul idin ka mid a qaadiga leedha abulfadal ayaa wuxuu yidhi ilaahay waxaa uu ogeysiiyey muuminiinta amba carabta uu ogeysiiyey amba uu reer ahlima ka ogeysiiyey inuu nebigu ilaahay soo diray dhexdoodana ka soo saaray rasuulkaasoo iyaga ka mid a
kaasoo ay garanayaan kaasoo wayataxaqaquuna makaanahu sharaftiisa ay garanayaan oo wayaclamuuna sidqahu runtiisana ay yaqaanaan iyo wa amaanatahu ammaane xifdigiisa oo falaa yatahimuuna bilkadib markaa dabeetana been aanay ku tuhmaysanin kol haddii ay garanayaan oo dee ay odhan jireen axmed amiin isagoo yar loo bixiyey oo ay garanayaan ammaane xifdigiisa iyo runtiisa sidaa daraaddeed baa ilaahay rasuul iyaga ka mida u soo saaray oo dabeetana aanay ku tuhmin been aanay ku tuhmin inaanu nasteexaynaynin nasteexadooda uu ka tegaayana aanay ka tuhmin waxaanay sidaa aanay ugu tuhmaynin likownihi minhum maxaa yeelay nebi iyaga ka mida oo markiisi hore ay yaqaaneen oo akhlaaqdiisa fiican ay yaqaaneen markaa aayadda qur-aanka markuu yidhi rasuulan min anfusikum waxaa la yidhi waxa ay tilmaamaysaa nabiga fadligiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo culimo quraada qaar ay akriyeen anfasihim oo faada la xarakeeyo markaa waxay noqonaysaa baa la yidhi sida qiraado haddii la akriyo min ashrafihim wa arfacihim wa afdalihim calaa qiraa'ati alfatxi haddii la yidhaahdo aynu akrino qiraada fadxada ah oo aynu fadxayno fada waxaa culimadu ay ku fasireen markaa waxay noqonaysaa nebigu calayhi salaam